soo dhawow daawade halka aad naga daawanayso waa Gool TV fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh channelka oo furo gambaleelka si ay kuu soo gaaraan wararka warbixinada iyo xogaha aan halkan soo gelino waqti walba kooxda Manchester City waxay caawa garoonkeeda Etihad Stadium ku qaabilaysaa Arsenal oo ay isaga hor imaanayaan ciyaar baaqi u ahayd xilligii ay kooxda tababare Pep Guardiola ciyaaraysay finalka Carabao Cup oo ay koobka ku guuleysanayeen. Mikel Arteta oo hogaaminaya Arsenal ayaa markii ugu horeysay u safray Etihad Stadium oo uu ka yimid dhamaadkii sanadkii hore markii ay Gunners u magacowday tababaraha oo xilka kala wareegay Freddie Ljungberg oo si ku meel gaar ah jagadaasi u sii hayay. kulanka Manchester City iyo Arsenal ayaa ah mid la sugayo in ka badan waqtigii caadiga ahaa waxaana ugu dambeyn ardaygii uu Guardiola soo tababaray ee Mikel Arteta uu ka hortagi doonaa macalinkiisii iyadoo uu tactikooyinkii farsamooyinkii iyo casharadii uu ka soo bartay ninka reer Spain uu ku tijaabin doono caawa. Manchester City waxay uga faa'iideysatay 3 bilood ee ay ciyaaruhu fasaxa ahaayeen in ay soo hesho bedelka Arteta waxaana isbuuc ka hor la magacaabay Juan Manuel Lillo oo Guardiola ka soo garab muuqan doona kulanka caawa ka dhici doona Etihad Stadium isaga oo la dejin doono khidadaha dagaal ee ay Gunners ku jabin karayaan. laakiin maadaama horyaalku ay jeebada gashatay kooxda Liverpool waxaa la filayaa in kaliya ay ku dadaalaan sidii ay sumcadooda u ilaalin lahaayeen oo ay guusha u heli lahaayeen iyagoo awoodda saaraya inay ciyaartooygooda isku bedelaan oo ay dhammaantood fursad siiyaan si ka duwan markii ay koobka ku xifaaltamayeen kooxda Liverpool. Guardiola ayaa awoodda isugu geyn doona kulamada Champions League ka harsan oo ay kooxdiisu wareega 8 hal lug la sii gashay kadib markii ay Real Madrid ku soo garaacday garoonka Santiago Bernabeu. waxaana ciyaarta caawa iyo 9 kulan ee kale ee Premier League uu ka faa'iideysan doonaa sharciga 5 bedel ee uu wada isticmaali doono si uu badqabka ciyaartooygiisa u ilaaliyo. dhinaca kale Arsenal oo dhinaca guuldarooyinka horyaalka Premier League kaga yar kooxda Manchester City haddana ku jirta kaalinta 9aad waxay sameysay isbedel ay u baahneyd muddadii uu Arteta macalinka u ahaa laakiin dhibaatada ayaa ka haysatay kulamada ay banaanka u baxdo iyagoo kaliya hal mar soo guuleystay 12 ciyaarood ee ugu dambeeyay ee ay dibadda u baxeen waxaana kaliya kaga rikoor xun ciyaaraha martida 7 kooxood kooxaha dhammaan ka ciyaara horyaalka Premier League. gool dhalinta ayaa dhibaato kale ku ah kooxda Arsenal waxaana shaqadii laga doonayay aan sidooda u qabsanin Lacazette iyo Aubameyang oo sidoo kale waayay kaalmadii qadka dhexe marka ay gawaabsi ku imaado gool dhalintooda waana kooxda 6aad ee goolasha ugu yar ka dhalisay horyaalka ilaa waqtigan. marka la eego natiijooyinka labada kooxood ay keeneen 6 ciyaarood ee ugu dambeeyay ee Premier League Manchester City 2 gool darro 1 barbaro ah iyo 3 guulood ayay soo urursatay waxaana ciyaarteedii ugu dambeysay ku soo tumatay kooxda Manchester United. Arsenal ayaa ka bedelan oo aan wax gool darro ah soo arag waxaanay si xiriir ah u guuleysatay 3 ciyaarood ee ugu dambeeyay halka 3 ka horeysana ay barbaro soo gashay. ku dhawaad muddo sanad ah waxaa Manchester City ka maqnaa garabka weerarka reer Germany ninka la yiraahdo Leroy Sane oo dhaawac uu soo gaaray ciyaartii Community Shield ee bishii Agoosto ee sanadkii hore ay la ciyaareen kooxda Liverpool waxaana uu seegay gabi ahaan xilli ciyaareedka ase yeeshee waxa uu ka faa'iideystay waqtigii go'doonka oo uu taam u soo noqday inuu mar kale u ciyaaro kooxdiisa isaga oo sugi doona xulashada Pep Guardiola. wararka laga helay gudaha Manchester City ayaa waxay sheegayaan in tababare Pep Guardiola uu tixgelin doono badqabka jir ahaaneed ee Sane oo si qunyar ah ciyaaraha ugu soo celin doono balse aanu markaaba ku soo tuuri doonin gudaha garoonka. Kevin De Bruyne, Emile Laporte iyo Sergio Aguero oo dhammaantood jug qabay intii aan la joojinin ciyaaraha ayaa taam u ah kulanka caawa ee Arsenal. Sergio Aguero oo ka hela ciyaaraha ay kooxdiisu ka hortagayso Arsenal goolasha ugu badanna ka dhaliyay ayaa la filayaa inuu ku soo bilowdo kulanka caawa oo Gabriel Jesus uu kaydka ka soo muuqdo. 15 ciyaarood uu Aguero ka hortagay kooxda Arsenal wuxuu ka dhaliyay 11 gool waana ninka ugu badan. dhinaca kale Arsenal waxaa u soo laabtay Sead Kolasinac iyo Kieran Tierney oo dhaawac ahaa iyo Cedric Suarez oo amaah ay ku haysteen oo taam u ah ciyaarta caawa. Callum Chambers ayaa dhaawac ah oo aan ciyaari karin kulanka caawa waxaase tababarka ka soo muuqday Lucas Torreira
oo kuraanta dhaawac jabniin ah ka soo gaartay hase yeeshee soo kabtay muddadii ciyaaruhu ay maqnaayeen. labada weeraryahan ee mustaqbalkooda mugdiga ku jiro ee Alexander Lacazette iyo Pierre-Emerick Aubameyang oo si joogto ah loola xiriirinayo inay ka tagayaan kooxda Arsenal ayaa hogaamin doona safka weerarka kulanka caawa. لاعبka reer Gabon oo 75 ciyaarood oo Premier League ah u saftay Arsenal una dhaliyay 49 gool ayaa ku tartamaya kabta dahabka, laakiin waxa uu sameyn karaa maanta taariikh cusub oo uu ku jabinayo rikoorkii Thierry Henry ee laacibka ugu degdega badnaa ee u dhaliyay Gunners 50 gool. Henry ayay ku qaadatay 83 ciyaarood inuu ku dhaliyo 50 gool. shaxaha macquulka ay ku soo gali karaan labada kooxood haddii aynu eegno, City waxay ku soo gali kartaa Ederson oo goolka ah, Walker, Otamendi, Laporte iyo Mendy oo daafacyada ah, De Bruyne, Rodri iyo Gundogan oo dhaxda ah, Mahrez, Aguero iyo Sterling oo weerarka ah. dhanka Gunners, Leno ayay ku soo gali karaan dhanka goolka, Bellerin, Mari, Luis iyo Tierney ayaa daafacyada ciyaari kara. qadka dhexe waxaa ciyaari kara Ceballos iyo Xhaka, waxaa ka horeyn kara Pepe, Aubameyang, Ozil iyo sidoo kale halka weerarkana uu ka ciyaari karo ciyaaryahan kale yiraahdo Alexander Lacazette. ciyaartan ayaa caawa laga daawan doonaa garoonka Etihad Stadium saacada Geeska Afrika marka ay tahay 10:15 daqiiqo.